jabadii soo wada dagaalamay mid walba qabiil bay ahayd SSDF qabiil bay ahayd UAC qabiil bay ahayd SPM qabiil bay ahayd SNMna qabiil bay ahayd maanta hadday Soomaaliya jiri lahayd oo Soomaaliyada ahaan lahayd idinku sidan waad ka fiicnaan lahaydeen annaguna odayaal fiican oo pension ku jiraan ahaan lahayd Soomaaliya Afrika laga yaqaano sharaf ku leh geeska Afrika awood leh kuwa laga dambeeyaa kuwa maanta u hanjabaynay iyagu hanjabeenay iyagu hanjabi lahaayeen maantana way soo gashay Soomaaliya waxay doontay ku samaysaa diyaaraday ku garaacdaa maxamed siyaad waxaan ku yiri madaxweyne waxaan ka codsanaynaa anoo magaca ciidamada qalabka sida Soomaaliya ku hadlaya inaad maanta noo fasaxdo horta ilaahay ma qadarin ilaahay sida aad tiri horta ma qadarin oo dawladda Soomaaliya way burburtay laakiin waxyaalo oo daras leeyahay baa jira mararka qaarkood oo leeyahay malaha haday saa halay dawladda Soomaaliya markay burburtay 30 jir bay ahayd haddana 30 sano ka dambeeyay iyo 30 sano ka dambeeyay Soomaaliya 1960 ilaa maanta waa 63 sano jirta 63 sano dadkii soo joogay uma kamid ahay yani ilmo yar oo arday aan ahaado laakiin 1960 ee class-ka labaad elementary school kan ahaa inta waa soo joogay Soomaaliya xoog weyn waa soo joogay Soomaaliya oo laga qadariyay geeska Afrika iyo adduunka oo dhan waa soo joogay Soomaaliya oo gacan siisa dhaqdhaqaaqa caalamiga iyo dhaqdhaqaaqa gobonadooyinka caalamiga ah ama National Liberation Movement-iska waa soo joogay Soomaaliya oo ku socota jidka hanti wadaagga waan soo joogay wax garadna waana dadka waliba very active ka abaan hay fikirkaas aqoonta u lahaa baan kamid ahaa Soomaaliya oo dawladaha Angola, Mozambique, South Africa, Lesotho, Zimbabwe dawladaha soo dhan gacan siisa oo gobonadoono baan soo joogay oo loo dadka u tababartaan soo joogay Soomaaliya oo dhaqaalaha dibadaha laga qiimeeyay soo joogay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Umar Arte oo dibadaha wareega oo adduunka oo dhan VIP oo meel walba la soo taagan soo joogay Allahu naxariisto Umar Arte Soomaaliya oo jaamacadda Carabta ku jirta baan soo joogay Soomaaliya oo afkeeda qoratay baan soo joogay arkay Soomaaliya oo dawladihii geeska Afrika ee Itoobiya iyo Kenya u awood sheegtaan soo joogay Soomaaliya oo dawladaha jaamacadda Carabta laga qiimeeyay soo joogay baan soo joogay Soomaaliya oo berisamaadkii la yiraahdo soo joogay hadda marka laga hadlayana waxaan raadinaa Soomaalida berisamaadka Soomaaliya oo jabhada soo weerareen baan soo joogay Soomaaliya oo qabiil aan aqoon baan soo joogay Soomaaliya oo qabiilka aad u taqaanana waan soo joogay Soomaaliya oo qabiilada wax ku qaybsan oo 3 nin oo ilmaadeerii 3 wasiir yihiin baan soo joogay oo Umar Atiye Gadhayr iyo Maxamed Xawaadle oo jilib hoosaad isla reer Hargeysa ay 3 wasiir waa soo joogay Soomaaliya oo laba walaaliyaha ay safiirayeen baan soo joogay Xuseen Nuur Cilmi iyo Xasan Nuur Cilmi baan soo joogay oo laba safiir oo walaalaha baan soo joogay Soomaaliya oo yaa tahay la yiraahdo aan la oran baan soo joogay Soomaaliya maxaa taqaanaa la yiraahdo baan soo joogay Soomaaliya oo yaa tahay la yiraahdo baan soo joogay Soomaaliya oo ila kacaan ma tahay baan soo joogay ayaan soo joogay marxaladaha soo faran baan Soomaaliya soo maray haddii la yiraahdo markaa Soomaaliya maxay maanta ahaan lahayd horta aalaba ma qadarin baan ku yiri oo ilaahay taas ma dhicin laakiin Soomaalidu markii ay burburtay ay jabhada burburiyeen Itoobiya dabada la galeen jabhaduhuna hadday jabhada Soomaaliyeed ahaan lahaayeen Soomaaliya way badbaadi lahayd Soomaaliya jabhada qabiil bay ahaayeen jabhadii soo wada dagaalamay mid walba qabiil bay SSDF qabiil bay ahayd UAC qabiil bay ahayd SPM qabiil bay ahayd SNMna qabiil bay ahayd way beelahaana way deegaanaysnaayeen iyaguna hore ugumana soo heshiinin war haddaan Maxamed Siyaad Barriye dawladdiisa ridno what's next sidaa daraadeed
maanta hadday dee soomaaliya jiri lahayd oy soomaaliyadii ahaan lahayd idinku sidan waad ka fiicnaan lahaydeen annaguna odayaal fiican oo benshan ku jiraannu ahaan lahayd oo wax la weydiiyo oo la xurmeeyo ayaannu ahaan lahayd idinku waxaad ahaan lahaydeen generation cusub oo generationka technolojiyada oo adduunka wax la qaybsada oo meel walba laga qadariyo oo aan qaxooti dibadda ku ahayn oo sharaf leh oo baasaboor leh meeshay doonaanba ha ku noolaadeene su-aasha isweydiinta mudan markaa waxa weeye 1991kii markay etoobiya burburtay haddii dowladda soomaaliyeed jiri lahayd oyna ka hor burburin deegaanka soomaalidu maanta muxuu ahaan lahaa xaggee buu joogi lahaa ma sida eritreyanu intaynu soo gallo baynu maanta waynu miyaynu soo geli lahayd oo sida eritreyun baynu dhulkeena iska qabsan lahayd maanta toloma soomaaliyaynu ahaan lahayd ma etoobiyaana ahaan lahayd daas waa su-aalaha had iyo jeer soo noqnoqda ee doodaha ka jiraa weeye allaba ma qadarin baan mar kale kugu celinayahay haddiise soomaaliya ay hadday dib u sii jiri lahayd oy 30 sano maanta 33 sano ku darsan lahayd soomaaliya afrika laga yaqaano sharaf ku leh geeska afrika awood leh kuwa laga dambeeya ah kuwa maanta u hanjabaayna ayna u hanjabeenay iyagu u hanjabi lahaayeen dhallinyaradooduna dad dhisan oo aqoon leh oo karti leh oo aaminsan naftooda ahaan lahayd dhibaatada maanta haysata soomaalida ee qaxootinimada iyo identity crisiska ay garan laayihiin cidday yihiin iyo meelay yihiin ayaan garan lahaa example baan ku siinaya meel la yidhaahdo waqaala oo ku taalla kenya NFD ayaa 5,000 oo soomaali ay kenya ku dishay I think inay 1983 ahayd baan filaya bannaanbax baa xamar lagu sameeyey madaxweynihii soomaaliya ka hadlayay waxaan ku hadlayay magaca ciidamada qalabka sida maxamed siyaad baan ka horreeyey dadkii hadlayey maxamed siyaad baan ka horreeyo iga dambeeyey maxamed siyaad waxaan ku idhi madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa adoo magaca ciidamada qalabka sida soomaaliyeed ku hadlaya inaad maanta noo fasaxdo muddo bil ah oo maanta ka bilaabanta inaannu shacabkaa u soo aargudno 24 hours kadib kenya xuduuddada way ka qaxday maalinta aan leeyahay noo fasax way ka qaxday maantana way soo gashay soomaaliya waxay doontay ku samaysaa diyaaraday ku garaacdaa gobolka gaday garaacdaa meelo kaley garaacdaa dadkeennay laysaa hadda waa kenya ogow waa kenya wey ogow waa qoladii saas ahayd wey marka kenyadii shalayta aan lahayn sidaas maanta islii baynu xoolaheennii ugu geynay hantideennii baynu ugu geynay wax walbaynu ku siinay sidaa maynaan ahaaneen south africa oo anigana aan ka mid ahaa markii south africa la abaabulayey dowladahana qaar la xoraynayey sarkaalkii soomaaliya masilayey ee joogay hareerga zimbabwe joogi jiray ee frontland stateska joogay ee OU defense organka la shaqaynayey sida dowladaha loo xoreeyo oo anoo hareer zimbabwe joogay nabiibiya xorowday maanta shacabkeennay ku laayaan shacabka soomaaliyeed bay ku laayaan south africa shacabka soomaaliyeed bay meel walba ay ku laayaan waa qaxooti giirgiira baa la yidhaha laakiin waagaa waxaanu ahayn qolada ugu sharaf badan adduunka allaba ma qadarine alla se ha qadaro mar dambe soomaalidii oo sidii ku soo noqota waan rajaynayaa iimaankaana waxaan qabaa soomaaliya inay soomaaliyadii kala noqon doonto inay fiicnaan doonto xanuunkan geela waxa lagu habaaraa kud iyo kaar kudil moogta soomaalidana qabyaalada kudishay baa lagu habaaraa soomaalidu mid walba wuxuu leeyahay qabiilku ha dhacdo hadda waa been ogow nin walba wuxuu leeyahay qabiilkaa xun qabiilkuna wuu fiican yahay ma xumaba waa beentoodba markaynu cudurkaa ka baxno waxaan aaminsannahay in cudurkaa ka baxno inaynu noqon doonno soomaaliya idinkuna intaad halkan ka qaxdaan derbiga